Suurtagal ma tahay in masaladan horteena ku qoran oo ah 4x plus 8y ayaa waxay kula mid tahay 10 iyo masalada hoose oo odhanaysa 2x plus 4y waxay kula mid tahay 5 aad soo saarto inay xal leedahay amase inaanay lahayn adiga oo aan raadin qiimayaasha x ama qiimaha y midnaba. Haa, waa suurtagal oo waxaynu isticmaalaynaa habkan a sub 1x plus b sub 1y ayaa waxay kula mid tahay c sub 1 halka a sub 2x plus b sub 2y ay kula mid tahay c sub 2 ama c2. Waaya, haddaba habkani wuxuu odhanayaa haddii a loo qaybiyey a1 loo qaybiyey a2 ay kula mid tahay b2 loo qaybiyey b1 aan idhaahdee b1 loo qaybiyey b2 intaasna ay kula mid tahay c1 loo qaybiyey c2 micnaheedu waxa weeyaan in equationtu ay leedahay infinite solution halka a b iyo c ay yihiin horgalayaasha xarfaha. Tusaale halkan 4 ayaa horgala u ah taa micnaheedu waxa weeyaan 4 waxay u taagan tahay a halkana 8 baa horgala u ah sidoo kale 8 waxay u taagan tahay hadda b halka 10 kuna uu taagan yahay c oo micnaheedu halkana waa a b iyo c 1 1 1 halkana waa maxay waa a2 b2 iyo c3 c2 aan idhaahday. Okay, marka haddaba bal innaga oo habkan isticmaalayna aynu ogaanay in masaladani ay xal leedahay amase inaanay lahayn. Haddii xal leedahay lafteeda imise xal bay leedahay taa lafteeda way noo soo saaraysaa qaacidadani micnihii qaanuunkani sidoo kale wuxuu noo sheegi karaa imise xal bay leedahay laakiinse la hayso waa qaanuunka koobaad ama waa xeerka koobaad. Haddaba eeda oo hadda ah 4 ayaa waxaynu u qaybinaa marka waxaynu doonaynaa masaladani siday u dhan tahay iyadoo iswadata in laba kala qaadayo tanna gaarkeeda xalka looma soo ogaanayo tanna gaarkeeda looma soo ogaanayo balse labadaba waa la israacinayaa dabeedna si guud ayaa loo soo wada ogaanayaa labadan masale ee meesha ku qoran maadaamay system of linear equation yihiin ama mataanayaasha isla egta toosan. Okay, 4 ayaa waxaynu u qaybinaynaa 2 mar kale 8 ayaa waxaynu u qaybinaynaa 4 inagoo la mid ah odhanayna waxay noola mid tahay 8 loo qaybiyey 4 intaasna waxay noola mid tahay baynu odhanaynaa 5 loo qaybiyey 10 loo qaybiyey 5 marka haddaad labadan isku qaybiso waa 2 labadan haddaad isku qaybiso maxay waa 2 kale labadan haddaad isku qaybisana waa 2 kale taa micnaheedu waxa weeyaan in equationtan sare oo ah system of equationkan ay leeyihiin infinite solution. Okay, aynu xusuusin halkan ugu noqono haddii ay dhacdo xaaladani micnaheedu hadday xaaladani timaado micnaheedu waxa weeyaan equationtaas waxay leedahay infinite solution ama solutiono badan ayay leedahay. Okay, bal haddaba in u nimaadno heerka labaad ee suurtagalka tahay in loo xalliyo system of linear equation waa adiga oo aan isku dayin inaad soo saarto qiimayaasha x iyo y ayaa waxaad ogaan kartaa inay xal leedahay iyo amase inaanay lahayn. Waayo hadda waxaynu ogaanay equationta xagga inoogu qoran inay leedahay infinite solution waa equationtani inay infinite solution leedahay ayaynu ogaanay inagoo aan wax tallaabaa qaadin
oo ku saabsan inaynu soo saarno qiimayaasha x ama qiimayaasha y. waayahay masaladan kalese ka hor haddaba intaynaan masalada u gelin horta aynu halkan ugu laabano xeerka labaad yani qaanuunka labaad aynu u laabano wuxuu leeyahay a sub 1 loo qaybiyey a sub 2 loo qaybiyey a sub 2 ayaa waxay kula mid tahay b sub 1 ama b1 loo qaybiyey b2 taasoo aan kula mid ahayn c1 loo qaybiyey c2 hadday marxaladani dhacdo. xaaladani hadday timaado micnaheedu waxa weeyaan equationtu wax solutionaba male, has no solution weeyaan, has no solution. Okay, marka xaaladani goormay iman kartaa? sidaynu hore usoo ogaanay equationtani waa infinite solution, marka iyada kuma tijaabin karna xeerkan oo ma odhan karna xeerkan inuu ku saleynana iyada, marka iyada waa ina iska masaxnaa oo inu equation kala qoranaa. Okay, equationtani waxayna leedahay marka 4x plus 5y ayaa waxay kula mid tahay 6 halka 8x plus 10y ayay noola mid tahay 7. way hadda a iyo b iyo c waynu haysanaa, yani a1 waxay noogu taagan a1 waxuu taagan 4 a1 waa tan, b1 waxay noogu taagan 5 halka c1 ay u taagan tahay 6 a2 waxay noogu taagan 8 oo ah intan. Okay, b2 na waxay noogu taagan 10 halka c2 na ay la mid tahay 7. marka dhammaantood waan haysanaa qiimayaasha. Okay, marka maadaamaynu ogaanay aynu haddaba ku tijaabinay xeerkan. waxaynu odhanaa marka 4 loo qaybiyey 8 ayaa waxay kula mid tahay 5 loo qaybiyey 2 5 loo qaybiyey aan idhaahday 10 intaasoo aanay noola mid ahayn 6 loo qaybiyey 7. labadan haddaad soo qaybso maxay halkani waa 1 loo qaybiyey 2 ayaa waxay kula mid tahay haddaad xaggaa 5 u qaybso micnihii halkaa waxaynoo qaybinay 4 halkana 4 baynoo qaybinay mar kale halkana 5 baynoo qaybin karnaa xaggana 5 dabeedna xagga sare haddaad 5 u qaybiso waa 1 halka hoose hadda 5 u qaybsan waa 2 laakiin xaggan yani wax guud oo u qaybin karta labada dhinac ma jiro, sidaa daraaddeed waxay noqonaysaa un inteedii. marka equationtani inagoo aan tallaabo kala qaadin wax solutiona male, haddaad isku daydana suurtagal maaha inaad soo saarto wax solution. Okay, xeerka u dambeeya waa kan saddexaad aynu muuqaalka gudihiisa ku ogaanino ayaa waxaynu odhanayaa sida tan. xeerkan waxayna leeyahay a sub 1 ama a1 loo qaybiyey a2 haddayna kula mid ahayn b1 loo qaybiyey b2 taa micnaheedu waxa weeyaan equationta xaaladaasi la kulanta ama xaaladani ay run ku noqotaa micnaheedu waxa weeyaan waxay leedahay hal solution, one solution ayay leedahay. Okay, marka equation tan halkan inoogu qoran iyadana waa iska masaxnaa sidii tii hore oo kale
waa inaynu mid cusub qoranaa. Okay, equationtan waxayna leedahay 7x plus 5y ayaa waxay noola mid tahay 3, halka 3x plus 2y na ay noola mid tahay 4. Okay, haddaba imika dib ugu noqon mayno a1 meeday, b1 meeday, c1 meeday oo waynu garanaynaa already. a1 waa 7, marka waxaynu odhanaa 7 oo qaybiyey 3 inoo laba mid aha way iska caddahay 5 loo qaybiyey 2. sidaa daraaddeed equationtan waxay leedahay hal solution.